daawadayaal kusoo dhawaada saxaabta filim soo idiin soo gudbisa barnaamijyada aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Bollywoodka filimada ka daadiya. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa geedka Jia Khan kadib dilka ka dambeeyay Jia Khan. Maxkamadda dalkaasi India ayaa waxay ku dhawaaqday in Suraj Pancholi uu kiiskaasi ka dambeeyay. Maxkamaddana waxa ay dul dhigtay in aysan isdaldalin ee la dilay Jia Khan. 2013 ayay ahayd markii Jia Khan oo mayda oo xarig qoorta lagaga xiray oo qolkeeda dhexdiisa ka lalmanaysa ay hooyadeed u gashay. 25 jirkaasi waxa ay ahayd aktarad ku soo caanbaxday filimka Nisha Bhatt oo ay la daadisay jilaaga caanka Amitabh Bachchan sanadku markuu ahaa 2007. Haddaba geerida ku timid Jia Khan dad badan oo reer India ayaa waxa ay ku noqotay lama filaan. Hooyada dhashay oo lagu magacaabo Rabia Khan ayaa waxa ay dacwadda kiiskaasi daba socotaba waxa ay isku dayday in ay baaritaan dheeraada samayso. Hayeeshee dhanka kale waxaa ka soo jeeday Aditya Pancholi iyo Zarina Wahab oo labada waalid ee dhalay Suraj Pancholi waxa iyaguna geed gaaban iyo geed dheer intaba u fuuleen sidii ay wiilkooda u badbaadsan lahaayeen. Rabia Khan waxay go'aan ku gaartay cidda gabadheeda dishay in ay maxkamad la fuusho. Bishii September ee sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaa warqad toos ugu socota ra'iisul wasaaraha dalka India ee Narendra Modi waxa uu gudbiyay looyaradii u doodayay Rabia Khan oo ah hooyadii dhashay Jia Khan dilashadii la daldalay. Haddaba warqadaasi waxay ku qorneyd in si toos ah maxkamadda loo keeno Suraj Pancholi oo lagu eedeynayay in uu ka dambeeyay kiiska dilka. Dambibaarayaasha waxay xaqiijiyeen in Suraj Pancholi uu muddo 24 saac ay wada joogeen isaga iyo Jia Khan inta ay geeriyoon kahor. Kadibna waxay yiraahdeen kiiska markaynu baaritaan ku sameeyno waxaa noo cadaatay in Jia Khan aysan isdalin inta la soo dilay kadibna xarig qoorta lagaga xiray guriga tiirarka alwaaxda dhexe ee kor ka yaala lagu xiray oo ay u cadaatay markii qoorteeda xarigga qaabku u qabtay iyo qaabka markuu qofku isaga isdalay in farqi weyn u dhaxeeyo. haddaba kiiskaasi waxa uu muddo socdaba arrinta dambibaarayaashaasi ay u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha dalka India ee maxkamadda sare intaba waa ay ku gacan saartay. Rabia Khan ayaa waxa ay go'aan ku gaartay in ay dambibaarayaal caalami ah dibadda ka keensato. Haddaba maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa arrintaasina diiday. ugu dambeyn maxkamadda sare dalka India waxa ay soo saartay in kiiska Suraj Pancholi iyo geerida Jia Khan loo gudbiyo Special Women Court ee dalkaasi India. Maxkamadda ayaa maalintii Talaadada ahayd waxa qaadiga ugu sarreeya maxkamaddaasi oo lagu magacaabo Kavita Sharapati ay soo saartay in dilka uu geystay Suraj Pancholi maxkamadduna ay go'aankaasi qaadanayso baaritaano dheeraada kadib. haddaba taxaabidda loo taxaabay Suraj Pancholi iyo jeelka iyo kiiska lagu soo eedeynayay oo ku cadaaday weli go'aan dhaba lagama qaadan. Marka maxkamadda sare loo gudbiyo ayaa si toos ah kiiska loogu qaadi doonaa Suraj Pancholi iyo eedeynta loo haystaa inuu dil u geystay Jia Khan isaga oo loola cadaynaya ayuu yiri anigu ma aanan dilin Jia Khan ayada ayaa dishay laakiin cid ka yeeshay ma jirto. waxaana laga warsugayaa wixii ka soo baxa maxkamadda sare ee dalkaasi India iyo Suraj Pancholi. daawadayaal barnaamijkiisa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. barnaamijka waxaa idin daadinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax waxaana ka daawanaysaan saxaafadda filimka inagoo isku duuban oo abaada saxaafin intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa daawadayaal.